guud ahaan markaa fiirisona waxa ay kala mid yihiin qaxootiga kale ee faraha badan ee ku nool gudaha waddanka Turkiga oo ay ka mid yihiin Afghanistan iyo Iraq iyo wadamo kale oo ka yimid Afrika oo kulligood halkan ku ah qaxooti gudaha waddanka Turkiga markaad fiiriso shacabka Turkida ee wadamada kale ee qaxootiga ku ah waddanka Turkiga Soomaalidu waxa moodaa in aad iyo aad ugu dhagalmid yihiin oo ay ka warqabaan xaaladooda oo ay ku leeyihiin Soomaalidu waxa weeye waa dad muslim ah waa aad iyo aad baan uga xunnahay dagaalada ka dhacay gudaha waddanka Soomaaliya sidaas daraadeed halkan iska sii joogay ku leeyihiin xitaa hasii aadina maxaan ku dhihi jiray wadamada kale ee ku yaal Yurub halkan ayaa muslim ah oo annaga walaalihiina tiin dabcan way jirtaa markaad eegto gobolada ku yaal waddanka Turkiga in la siiyay oo gaar ahaan Soomaalida oo aynan helin qaxootiga kale ee ku nool gudaha waddanka Turkiga sida qaarkood waxa la siiyaa dibadejin rasmi ah guriyada dawladdu ay dejisaa oo wax qarashaad aan laga rabin waxa la siiyaa raashin caafimaad caruurtooda waxbarashada ay aadaa marka laga reebo sharciga inta kale waxaad moodaa in ay ugu horeeyaan wadamada kale ee qaxootiga ku ah maxaan ku radaa gudaha waddanka Turkiga dhanka kale UNHCR-ta runtii dadka howlahooda qaba jirtay laga soo bilaabo markii waddanka Soomaaliya uu dagaal ka bilowday sanadkii 1990 oo qaxootiga markii halkan iska diiwaan geliyaan u sii qaadi jirtay wadamo kale oo ku yaala Yurub ama Mareykanka waxa kamid ah wadamada UNHCR-ta dadku u qaadan badiyaa waddanka Canada iyo America iyo Finland iyo Australia wadamo sidaas oo kale u qaadi jirtay ayaa 2008 waxa ka soo baxay sharci cusub kaas oo qaxootiga u kala dhigaya labo qaarkoodna xaq u leeyihiin in la sii dibadejin waddan kale oo saddexaad oo wadamada aan hore u soo sheegay kamid ah qaarkoodna halkan ay iska sii joogayaan inta waddankoodu uu nabad ka naqanayo oo markaasna dib loogu celin doono gudaha waddanka Soomaaliya waa marka Soomaaliya ay nabad noqoto taas oo runtii markaad eegto ku beertay niyad aad iyo aad u weyn qaxootigii faraha badnaa ee Soomaalida u badan haweenkii iyo caruurta oo ayagu dabacsanaa mar laanta qaxootiga ee qaramada midoobay UNHCR in howlahoodu ay wax ka bedeli doonto ay u sii qaadi doonaan wadamadaas kale si ay uga helaan nolol wanaagsan iyo shaqo iyo waxbarasho ayaa haddana maalmahan waxaad arkaysaa ayagoo maxaan ku rahdaa in aad iyo aad u walwalsan ama u murugaysan sidoo kale dadka halkan yani ku dhibaataysan oo maxaan ku rahdaa go'aanka cusub uu saameeyay ma ahan dad runtii maanta awood u heli kara in ay ugu sii gudbaan wadamada ku yaala qaaradda Yurub oo waxay u baahan tahay qarash far badan baa la galayaa runtii noloshooduna waxa weeye waxay u arkaan dad ay mugdi ay soo galayso mustaqbalka marka haddii aan ka waranna ayagana dadka in u sii safar dhanka Greega runtii ayagana waxa weeye aad iyo aad bay uga sii baxaan waddankan qofkii markaa fursad ay u saamaxayso oo marka loo eego qarashka iyo qof markaa halkaa ka sii wada haysta waxay aadaan Athena oo ah caasimadda Greega ayuu ku aada laba qaab bay ku galaan qaarkood waxa ay maraan badda ay maraan waxay raacaan dooman iyo maraakiib ayaa ka kaxaysa xeebaha galbeed waddanka Turkiga gaar ahaan gobolada Izmir iyo Adirna iyo Istanbul ayaa waxay ka raacaan dooman ayagoo ku wajahan waddanka Greega kadibna halkaas ay isu dhiibaan askarta badaha ilaaliya ee Greega oo markaas ay u sheegaan in maxaan ku rahdaa ay Soomaali yihiin isla markaana ay doonayaan in nolol ay ka helaan waddanka Greega qaarkoodna waxa ay ku safraan safar oo dhanka lugta ah ayagoo markaa mara xuduud u dhaxaysa Turkiga iyo Greega oo laga yaabo waqti far badan inay ku qaadato qaarkood isla markaasna halis aad iyo aad u weyn ay ka soo gaarto sababtoo meesha la marayo waa xuduud oo si sharci darro ah lagu marayo
oo laga yaabo maxaan ku rahdaa askarta xuduudaha ilaaliya ee labada dal waa Turkiga Giriga haddii markaas ay ku qabtaan in ay ku xiraan isla markaana ay maxkamad ay ku soo saaraan maadaama aad ka warantay xaaladda guud ee Soomaalida halka ku nool iyo safarada u kala baxaan wadamada markay ay doonayaan reer Yurub waa maxay waxay ku kala duwan yihiin meesha ka timid ee Qaahira Soomaalida ku nool iyo kuwa ku nool xagga cariga Turkiga loo ahaan runtii markaad eegto labada magaalo Soomaalida ku kala nool haddii aan soo qaato mesela magaalada Qaahira waxay magaalo degan oo dadku ku nool ay inta badan ay yihiin dad arday ah oo halka waxbarasho u jooga ama dad ka soo laabtay wadamada ku yaala qaaradda Yurub iyo Mareykanka iyo Australia oo halka caruurtooda keensaday si ay waxbarasho ugu bartaan ama waxa yani loo yaqaan diinta Islaamka oo kale inay bartaan oo sidaad ka warqabto magaalada Qaahira waxaa ku yaala jaamacad aad u weyn oo lagu barto culuumta Islaamka oo ay ka mid tahay jaamacadda Azhar magaaladu waxa weeye waa magaalo aad isaga degan oo cidii waxbaranaysana ay waxbarashadeeda ku mashquulsan tahay cidii shaqaysanaysana ay shaqadeeda ku mashquulsan tahay oo ayna jirin meelo kale oo looga sii talaabo dhanka iyo wadamada qaaradda Yurub oo aad moodo Soomaalida qaxootiga ah ee qurba jooga gaar ahaan kuwa ku nool wadamada Afrika iyo Aasiya ay moodaan inta badan in nolol wanaagsan ay halkaas ay ka helayaan laakiin marka halkan Ankara ama guud ahaan wadanka Turkiga adeegto Soomaalida joogto waxaad moodaa runtii dad oo niyadoodu ayna degnayn oo xitaa ku fikireen in halkan ay sii degaan ama mashruuc ay ka abuurtaan mashruuc waxbarasho ama mashruuc shaqo oo dadku niyadoodu ama waxay kaaga sheekeynayaan xafiiska maxaa la yiraahdaa United Nations ee qaxootiga dadka inta qof uu qaadayo sanadkan iyo meelaha uu qaadayo ama mararka qaarkood waxay kaaga sheekeynayaan inta qofood ay ka safartay si sharci darro wadanka Turkiga ayagoo beegsanaya wadanka Giriga marka noloshooda oo dhan iyo sheekadooda iyo waxa inta badan isku mashquuliyaan waxa weeye sidii loogu safri lahaa guud ahaan wadanka Turkiga ha ahaato nidaamkan oo United Nations ama nidaamka kale oo maxaan ku raadaa dadka wax safriya ay dadku ku qaadaan ama waxa af Soomaaliga lagu yiraahdo muqallasiin ama waxay yiraahdaan erey kalaalkan ay isticmaalaan Soomaali inta badan oo ku leeyahay muharrib ereydaas oo kale ay u adeegsadaan dadkaas marka farqigaas ayaa u dhaxeeya oo dadka halkan ku nool markaan eegay inta badan ma ahan dad midoodu ay degan tahay oo yani istiqraar oo rasmi ah halkan oo ku haysto inta badan waxa ay ku taamayaan ama ay haminayaan sidii mar uun wadankan ay ugu bixi lahaayeen sanadkaas wuxuu ahaa Maxamed Abuukar Sheekh Xasan Maxamed Deeq oo ku nool dalka Turkiga magaalada Ankara aan ka wareysanay Soomaalida halka ku nool iyo waxyaalaha ay dhibaatooyinka ay kala kulmaan halkan waa Zurich studio maanta waxaan ugu soo boqday Abdullahi